جرش ولا بس هي جرش والله يفاكر اسمه القلي سوا أحمد bien eso. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. waxaan hadda ka soo baxnay wasaaradda arrimaha gudaha annagoo labada xisbi qaran ee mucaaradka u ciidiyo wadaniga waxaan u gudbinay sida sharcigu dhigayo ee dastuur qorayo inaan warqadii wargelinta ahayd ee ogeysiinta ahayd inaan u gudbino wasaaradda arrimaha gudaha. warqadaasi waxaa ku qoran ogeysiiskii ama wargelintii mudaharaadka maalintii loo cayimay waqtigu dhacayo oo ku beegan 11 bisha maalinta khamiista ah inuu mudaharaadka soo dhici doono. wasiirku runtii si fiican oo sharaf leh noo soo dhameeyay waan uga mahad celinaynaa waanu naga gudoomay warqadaasi waayo waa warqadii uu codsanayay ee uu ku celcelinayay oo lahaa waa soo gudbiyaan warqada wargelinta ama isagu sidoo dhigay codsiga ahayd laakiin wargelin bay ahayd waana u gudbinay dhammaan shacabweynaha Soomaaliland taageerayaasha labada xisbi qaran cid kasta oo danaynaysa dalkan in dimuqraadiyadda lagu soo celiyo sharaftii iyo sharcigiisina dib loogu soo dabaalo sidaad aan idla socodsiinayno warqadii maantaan gudbinay waanu naga gudoomay wasiirku waanu uga mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadsan yahay wixii tafaasiila inta ka horeysa bisha 11keedana xisbiyadu si abdeedeed la wadaagi doonaan. xeerkuna wuxuu dhigayaa in 3 cisho ka hor loo gudbiyo wargelinta la siiyo hay'adaha khusayso anaguna 4 cisho ka hor baaban maanta gudbinayba waxaan qabnaa inaan sharciga si marnaan uga soo baxnay waan mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka dhamaatay weydiin way qadar waxa ka qaban بسم الله الرحمن الرحيم سدا xoogayuhu sheegay annagoo laba guddi oo xisbiyada ah waxaanu maanta taariikhdu tahay 7 bisha saacaduna ay ahayd abaarakowdii iyo rubuc aanu gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegay xeerarkiisu warqadii ogeysiiska ahayd ama wargelinta ahayd xisbiyada mucaaradka ku dalbanayay mudaharaad salmiya oo nabadgelyo ah wasiirku uu naga gudoomay iyadoo waliba ay la fadhiyaan wasiirro kale oo kamid yahay Saciid Sulub uu naga gudoomay maalintii hore waxaan kamid ahaa anigii Maxamed Faarax barragii u gudbiyay wasiirka waxyaabihii wasiirku maalinta hore uu markii su'aaluhu na weydiiyay markuu warqad akhriyay waxa kamid ahaa warbahashu dheydna male meeshii mudaharaadka la marinayana kuma jirto labadiiba maanta warqadii waa lagu daray dheydna waa loo sameeyo khamiista laga dhigay meelihii kalena waxa kulay hadli doona labada gudoomiye iyo murashaxa xisbiga ayaa hadli doona haddii Ilaahay yiraahdo ama hogaanada labada xisbi baa hadli doona oo faahfaahin doona laakiin waxaan ummadda u sheegaynaa shacbiga Soomaaliland u sheegaynaa inta sharciga jecel u sheegaynaa in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jecel u sheegaynaa in waqtigii la cayimay wasaaraddiina warqadii naga qabatay intaas maan doonay maanta inaan shacbiyana la wadaagno wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan u ogeyn warqadda inaad ugu gudbisanayaan wasiirka oo banaanka ku dalbanaysa wasiirku uu diiday tan haddii uu cudur daar keeno oo qodobada qaar diido ma laga yaabaa inaad dib u celiso sawdka adkaysan go'aanka de horta hala gaaro laakiin warqadda sida xeerarku sheegayaan waa wargelin dad xeerarka dalka akhrido
waxa weeye maaha codsiyo waa wargelin ama ogeysiis weeye marka waxa weeye de hal la gaaro xilligii diidayaan hal la gaaro anagu wasiirku de nama oran waan diiday nama oran xogaya laakiin wararaanu dhinaca arrimaha gudaha ka helay waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha guduhu idinka dalbaday in labadii qof ee ku saxeexan ama labada gudoomiye xisbi mucaarad ayagu u yimaadaan arintaa si ma jirtaa inuu idinka dalbaday gudoomiyuhu wasiirku naga codsaday labada gudoomiyuhu naga codsaday wuxuu yiri aan labada gudoomiye warqadda soo qoran is aragno si aan isula jeexjeexno waxyaabo badan oo warqadda ku qoran markaa annagu taasi waxa weeye de waan gudbinaynaa labadii gudoomiye aan u gudbinaynaa aan u sheegaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waanu ka soo qaadnay fariintaa in wasiirku yiri labada gudoomiye noogu yeedha waanaanu gaarsiin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo xogaya haddii mudaharaadkana ku baaqdeen xukuumadda diido oo mar labaad laydin diido shacabka Soomaaliland ma u cayimaysaan waqtiga rasmiga ah ee waxa weeyaan mudaharaadaysaan horta mudaharaadku waa sharciga waa qodob dastuuri oo qodobka 200 farqadiisa labaad baa dhigay dadkeenu hadii jeer waxa ku soo celiya hadii xukuumaddu diido xukuumaddu xaq u malayna diido qofka muwaadinkaana sharciga siiyay inuu raygiisa cabiri karo isagoo hubna sidan oo si salmiyo u dhiiban karo fikirkiisa waxa waajib naga saaran yahay annaga mar walba in mudaharaadkaasi si salmiyo aan u dhiibano ummaddu isku soo baxdo sifa sharciga waafaqsanay u soo baxdo sifa sharciga waafaqsanay u gaarsiiso codkooda dadweynaha cid ay doonayaan waayo xogaya miyaa weydeen waxaan mudaharaad ahayn oo xala mar walba waxa ku baaqaysan mudaharaad xal kale miyaa la adin in xisbiyada mucaaradka mudaharaadku waa xuquuq asaasiya oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyay muwaadiniinta waana tallaabada laynoo baneeyay in xukuumaduhu markay darjiiraan lagu soo celiyo adduunyada waa ogtiinoo dee qoys baa mudaharaada adduunyada qoys ayaa waalid baa inta caruurtiisa uu kaxaysto hor istaaga ra'iisul wasaareyaasha ama madaxweynayaasha ama golayaasha wakiilada oo mudaharaada marka sababta dastuurka inoo siiyay waxa weeye in wadada lagu soo celiyo ma garanaysaa xukuumadda markaa xukuumad kasta ha noqoto haddaan doonno anagu berri toole haddaan kursiga nimaadna annaga ha noqoto xukuumad kasta waa tallaabo sharci oo dastuurku sida de wasiirka arrimaha gudaha afkiisa ka maqlayseen mar walba shirka jaraayid ay qabanayaan qolada xukuumaddu waxay leeyihiin dastuurka mudaharaadka waxa baneeyay dastuurka annaguna dastuurku maanu taaganahay marka waa tallaabo muwaadiniintu xaq u leeyihiin inay wixii ay xaq u leeyihiin Soomaaliland midaan daawanayn mudaharaadkii ka laga hortagayay layrka Soomaaliya waa mudaharaadku waxa kale wuxuu la mid yahay kii aynu deestay 10 kamid ugu baxaynay buu kamid yahay inuu qadiyadeena ku muujinayno wuxuu kamid yahay waxa kamida kii madaxweynaha lagu soo dhaweynay calanka Soomaaliland la qaadanay anigoo Yuusuf Kaysaaba calanka Soomaaliland qaatay madaxweynaha ugu tagay madaarka saan maaragtay u tuso adduunyada inuu de madaxweynaha qaranka yahay markii uu ka yimid safarkiisii uu kaga tagay Gini uu kaga yimid Gini marka waxa weeye de ma hakay xukuumaddu jeceshu ma aha mudaharaadku waa xuquuq asaasiya oo dastuurku ina siiyay waa ka muwaadiniintu ay maalintii dhaweed ku hadlayeen waa kana ku hadli doono waa kay xukuumaddu dadka 18 kamid ugu soo saar doonto marka waa xaq dastuuriye weey way xogaya hadiiba mudaharaadka qabataan mudaharaadka ku dhawaaqdeen xal ma u noqon karaa khilaafka xukuumadda iyo sidoo kale hogaamiyaasha mucaaradka dadam mudaharaadku istaagay maayay la halku yimaado sababta loo qabanaya waxa weeyaan in xukuumaddu ku soo noqoto sharciga sababta mudaharaadka loo qabanaya waa xukuumaddu sharciga ku soo noqoto ilaa ay xukuumaddu sharciga ku soo noqotana oo sifihii sharciga dalka lagu maamuliyo ku soo noqotana oo xeerarka dalka hogaansatana mudaharaadku soconaya